halkan waxaynu bilaabanaynaa xafladeedii shirkii jaraay ee aynu kaga hadlaynay shacabku way ka muujinayeen sida reer Soomaaliland ee gobolka Togdheer ay ku muujinayeen dareenkooda ku wajahan khudbadii gudoomiyaha ahna gudoomiyaha xisbiga gudoomiyaha wakiilada ahna gudoomiyaha xisbiga wadani uu ku qeexay arrinkan kaga hadlay arrimaha masiirka Soomaaliland iyo doorashooyinka wixii ku saabsanaa oo taa ay shacab inta kadib waxaan munaasabadan u ay tahay sidoo uu sheegay gudoomiyaha xisbiga wadani xisbiga uu cidna uu ku raacay wixii ka baxsan sharciga ma yeelayno doorashada waqtigii la sheegay la isku waafaqay hariba u soo yeelay inay ku dhacdo si xalaal ah oo aan isjiid iyo cambaraystoon lahayn oo xukuum mucaarad iyo muxaafid loogu diyaar garoobo anagu haddaan nahay dadweynaha Soomaaliland ayaanu diyaar u nahay waxaana ku taageersanahay gudoomiyaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Ciro iyo mas'uuliyiintiisa kale ka soo jeeda xisbiga wadani meeshii kasta la joogaba si asaan ugu diyaarnahay waxaan halkan ku cadeynayaa waan ka wakiilahay beesha waxaan halkan ku cadeynaynaa inaanu diyaar u nahay sharciyada wadanka ina sida ay qeexayso doorashadu inay waqtigeeda ku dhacdo oo aan maalin lagu darin waayo fartaasaanu kugu dooranay 5 sanadood sharciyadeedu fartaa weeye maalinna lagu dari maayo maalinna laga dhimi maayo ra'yigii soo jeediyay gudoomiyaha wadani Cabdullaahi Maxamed Cabdullaahi Ciro ra'yigii soo jeediyay doorashada ilaa maalinna dhaafin maalinna lagu darin ayaa ku taageersanahay anagoo ah odayaasha Togdheer iyo culimadiinka Soomaaliyeed dhammaantood waxaan ku taageersanahay inaan maalinna lagu darin ayaanu ku taageersanahay waqtigeedii ku dhacdo ayaanu ku taageersanahay inta raacay xisbiga wadani Cabdiraxmaan Ciro oo yahay madaxda iyo xisbiga oo yahay Jamaal Cali Xuseen sida ay qeexeen ee ku guuleysadeen inaanu maalinna dhaafin doorashadu ayaanu halkan ugu dhigo kuna taageeraynaa madashan ay isugu yimaadeen aqoonyahanka waxgaradka uqaasha salaadiinta waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxa weeyaan haddii inagu nahay Soomaaliland ma nihin dal la aqoonsaday waxaynu nahay dal process ku jira aqoonsigiisii oo ay ku qaadatay muddo rubuc qarni laba shay in adduunka iibinaa labada shay waxa weeyaan doorasho gacan isku dhiiba iyo nabadgelyo labadaasina waa labada aynu ku soo caanamaalay waxaan anigu qabaa intii ay xisbiga weeyime kulmiye oo awood qabtay inuu labadiina meesha ka saaray ina riyaale maalintii uu Axmed ku wareejinayay xilka wuxuu Axmed waxaan kugu wareejiyay dal iyo dad midaysan iyo dad midaysan labadii waxaad moodaa inay meesha ka baxeen labadaas u bin dadka ka yimid adduunka waa dimuqraadiyad qori isku dhiiba oo maalin banin ninka wareejiyo iyo nabadgelyo wax kale aynu leenahay ma jiro inaga aqoonsanay inaga isku tashanay waxa weeyaan labadii xukuumadan kulmiye meesha way ka saartay waxaana sababay waa arkaano beelihii dalka deganaa labadii daraf qayla ka taagan waa dadkii midaysanaa ee uu ina riyaalay waan kugu dhiibay dad midaysan waan kugu dhiibay uu yiro inagoo joogna xisbiyo oo wadani waxaan leeyahay kulmiye iyo ucid iyo udub dadku ku kala qaybsan yahay oo taa lagu midaysan yahay wada aragtaa oo ummadii waxa kala baxday qabaayil waana xukunka laga dhaxlay xisbiga kulmiye ilaahay waxaan ka baarayay inaan taa sharkeeda inaga badbaadiyo waxaanu leenahay waxaanu taageersanahay go'aankii ay ku dhawaaqeen labada gudoomiye xusbi gudoomiye Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ciro gudoomiye Jamaal Cali Xuseen labada gudoomiye
ee labada xusbi mucaarada ee madaxweyne nin waliba madaxweynaha u sharaxayay ee aan leenahay insha Allah mid ka mid ah ku guuleysan doona taageeradii aanu hayna ayaan maanta halkan ku muujinaynaa taasoo ah go'aankay soo saareen ee ahaa dib looma dhigi karo doorashada waqtigeedii lama dhaafin karo kaasaanu taageersanahay waxaana aan filayaa inay ku qotonto dastuurka hadduu dad ballamo islaam yahay inuu ballanku shaqeeyo halkiisii la dhigo oo aan laga qaadin ayaa loo baahan yahay hore waxaanu taageeraynaa sidii ka soo baxday labada xusbi qaran jamaal cali xuseen iyo cabdiraxmaan ciro oo ah gudoomiyaha xusbi wadani adag gudoomiyaha golaha wakiilada waxa weeyaan si qiimale ayay uga hadleen waxay dhahan doorashada xilligeedii inay teem la dhaafiyo lama ogola waa si wanaagsan danu shacbiga nahay iyo xusbi taageerayaasha xusbiyada mucaaridka iyo shacbiga cuqaasha waxaanu anaguna la qaadanay inay doorashadaasi ay sidaa ay u sheegeen ayaanu la qaadanay inaan waxba lagu dari karin tan saasaanu ku taageersanay waanu la qaadanay soomaalida waxay tiradaa haddiidaysaa geday kaa qatamudi waxa weeyaan in sharciyadda dalka lama jira habaabiyo oo kulba waxaan macnaleyn lagu aadbusho maaha waxa weeyaan dalku doorasho xor iyo xalaalada kusoo caanamaalay somalilan ay ku taagantii nabadda iyo doorashadaa sida xalaasha u dhacaysa waa dal aan ictiraaf lahayn waa dalka ayayna nabadgelyadiisu ay ka taab qaaday in khalkhal la geliyo maaha waa da khalkhal baan haddii laga doorasha ma jirto waa halis weeyaan inay daneeyaan rabitaanka shacabka ayaan doorashaduna ka dabamarin sidii anjadhaha ku qoreyd ee loogu heshiiyey taasu waxay keeni kartaa in bulshada khilaaf dhexdeeda yimaado haddii ay daba marto marka waxaan u soo jeedinaynaa oo si cad ugu soo jeedinaynaa inay doorashadu xilligii loogu talagalay dhacdo oo amniga iyo xasiloonida iyo nabadgelyada aynu haysano ee ku naaloonayno ay ku taam ahay somalilan waxaan taageeraynaa annagoo ah gobolka togdheer haweenkiisii guddoomiyaha xusbiga wadani ahna golaha wakiilada guddoomiyahooda cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro iyo xusbiga ucud ee ku taageeray inay xukuumaddu samayso doorashada xukuumaddu waxay tidhaahdaa annagu waanu diyaarinay ma waxa la arkay qof wuxuu diyaariyey cid kale ka sugaya xusbiyada mucaaradkan mala diyaarhayn xusbiyada mucaaradku waxay la mid yihiin dadweynaha wax sugaya ee xukuumadda wax ka sugaya xukuumaddu baliyay sugaysaa iyadu marka wax diyaarisay xaggay wax geysi waxaanu leenahay xukuumadda iyo madaxweynaha hadalkiisi ha israacaan oo madaxweynuhu wuxuu yidhi maalin ku dari maayo wakhtigaygii maalintii ha laga dhameeyo oo de wasiiradiisuna ha la mid noqdaan iyo kulmiyaba waxaan leeyahay waddanka waxay ku mashquushay xukuumadda xusbiyada balse waxaaban arkaya xalay qaar lahaa waddooyin baanu ka saaraynaaba oo kalo dowlado kale ah waa yaabanahaye dad waxbaanu arkay xalayta waddooyin baa ceergaaba laga samaynayay puntland lahayd waddaan samaynayaaye maxaa dhacay maynaga isku mashquullay xukuumaddu doorashada ha gasho ha is aaminto buug cagaara bay tidhahdaa waan sameeyey ha aaminto ha gasho doorashada madaxweynuhu ha soo diyaariyo doorashadii dowladdu ma rabto in doorasho la qabto xilligeedu ku dhacda dowladdu waxay doonaysaa inay muddo kordhin samaysato iyaguna waxay lahaayeen mucaaradku waxay arkeen garan maynee dowladdu wakhtigii doorashada loogu talagalay ayay ku qabanaysaa halkan anigu waxaan ku sheegayaa ka caddaynayaa horta marka hore anigoo xisbi taaganayn oo qolobo gaara ahayn waxaan ka hadlaya waa masiir anigu aan leeyahay madaxweynaha qof kasta isagaa doortay dadku uu doortay annagaa 5 sannadood doorannay 5 sannadood maanta ka dhammaato biqayr sharci buu noqonayaa doorashada 5 sannadood loo doortay xilliga qofka ay madaxweynaha ka dhammaato xilligiisii wuu dhammaaday waa inuu doorasho cusub galaa ama waa inuu sacadsinaa ka tanaasulaa
taas waa qodob anigu waxaan ahay xisbiga kulmiye imanka weli iskamaan casilada xisbiga kulmiye anigu ahay waxaan u sheegayaa wixii aynu shalayta dadka waxay shalay ka dagaalanay inaynu maanta inagu dadka ku dayno ma aha wixii shalayta dadka aynu u sheegnayna inaynu maanta ku dhaqno ma aha shalay baynu ka dagaalanay doorasho aan diiwaangelin lahayn oo aynu istubnay laamiyada shalay baynu ka dagaalanay muddo kordhin maanta inagu inaynu soo qaadanno ma aha nebigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam fidmadu way hurudaa ninka toosiya nacdale ha ku dhacdo maanta waddanka waxaynu dadka ka iibinaynay ee ugu weynaynu haysanay waxay ahayd nabadgelyo nabadgelyada maanta ninkii waxyeelaya ee dadka khalkhalgelinaya ee maanta ciidamada qaranka doonaya inuu shacabka ku laayo waxaan u miyaynu raalli ka tihiin jawaabtu waa maya miyaynu raalli ka nahay deke inagoo soo tuban dekadii berbere in la iibiyo maya weeye su-aashu waxaan intaa ku darayaa oo madaxweynaha kula talinayaa tiraabkii afkaagiyo waxaa tidhi habeenayn tooriyaha soofay warmaha teeri baaliday tolkii eedda kala gaadhay iyo wixii tayaha noolayn marka waxaan leeyahay madaxweyne nin weyn baa tahay yaan ciyaal iyo dumarku hor cararin yaan dhegta wax lagu saarin 5 sannadood baanu ku doorannay 5tii sannadood way ka sii dhammaanayaan 310 habeen baa kuu hadhay haddii aad intaa doorasho ku qaban weydo oo aad xilligii doorashada ku qaban weydo maalinta ay 200 marayso taariikhdu 200 habeen oo dambe haddii ilaahayna gaarsiiyo qof kasta oo Somaliland shaar cas ha qaato uu ku diidan yahay arrintaas sidaasna waxaan leeyahay dadweynaha intaa waxaan ku darayaa qolada komishanka ninka guddoomiyaha oo ayaa afhayeenka komishanka labadaba war hambalyaynaya iyo dhammaantoodba waa ninaan aad isu naqaano cabdiraxmaan iimaan warsame siciid cali muuse iyo kuwa kale ee la shaqeeya dhammaantoodba waa niman aan isnaqaano niman gaaja haysa ma aha niman dhinac u xaqlinayo sidaan anigu ka filaayo waa laydin aaminay ummadda idin aamintay xil baa laydin dhiibay ilaahay baa idinku eegaya siilaaya wallaahi inaanu naarta idinka celinaynin jannadana wallahi inaanu idin seexinaynin sharaftiinna iyo cisigiinna iyo jannadiinna waxay ku jiraan maanta dadweynaha raaca isku dayga inqilaabka ay wadaan xukuumadda sidaa iyo ka hortaga ilaahay kaga baqa ummaddan waa la boobay cashuurtii baa lagu boobay oo leyrkii baa lagu boobay oo waxa weeyaan cadaaladii baa lagu boobay oo markuna run looma sheegin